kulankani ay wada qaateen ciidanka booliska iyo shacabka xaafadaha qaar ee magaalada Kismayo ayaa ujeedkiisa ahaa qaabka ay dadweynaha ku nool xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismayo iyo ciidanka booliska uga wada shaqeyn lahaayeen sugidda amniga magaalada Kismayo. Kulankani ayaa waxaa qayb ka ahaa ururada bulshada rayidka sida haweenka, dhalinyarada, odayaasha iyo waliba gudoomiyaasha labada xaafadood. Qaar kamid ah ka soo qaybgalayaasha kulankani ayaa soo dhaweeyay bismillaah meesha waxaan sugu nimid waa nabadgeliyada arrimaha bulshada annagu ururka hadda haweenka hadaan nahay weligaan waan ka shaqeyn jirnay nabadgeliyada haddana waan la shaqeynaynaa Booliska saasoo annaga dan weyn oo ama bulshada dan weyn oo annagu haddaan haweenkana wax walba u jilicsanahay dib kastana annagu nagu dhax gudoomiyaha xaafadda Faanoole Cabdifataax Aadan Cabdullaahi iyo gudoomiyaha xaafadda Farjano Abuukar Sheekh Maxamed ayaa soo dhaweeyay kulankani wacyigelin annaga ka xaafadahan iyo maamulka xaafadaha oo dhanba waan soo dhaweynaynaa waana la shaqeynaynaa waxaana ku xidhan nolosheedii iyo shaqadeedii iyo muhiimadii wixii haday nabad ay ku xidhan tahay waxa masiya inaan garab taagnaano wixii danteedu ku jirto annaga gudiyada xaafadaha iyo ururada bulshada ee xaafadda ka jiraba aad baan u soo dhaweynaynaa in booliska iyo annagu aan wada shaqeyno ayaguna ay waajibkooda gutaan annagana inaan waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa inay u dhaganuglaadaan bulshada. dhanka kale gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Jubbada Hoose Axmed Maxamed Taqal ayaa booliska Jubbaland ku booriyay in shacabka loo sameeyo nambar ay booliska kala soo xiriiraan si ay markaasi ugu gudbiyaan arrimaha degdega ah. waxaan ku baraarujinaynaa ka codsanaynaa booliska inay iyaguna soo jiidasho sameeyaan bulshadii ay soo jiitaan ay u garab raariciyaan hooyada iyo dhallaanka iyo intaba bulshada qaybadeeda kala duwan qof walba markuu soo istaago ay si uu noqon inuu ka baqdo laakiin ay noqoto in ayagu loo soo ordo sirtana lagu qarsado noqdaan kuwa runtii kabihii la xiran lahay noqdaan aad iyo aad baan ugu dambeyntiina afayeenka booliska Jubbaland Jaamac Axmed Cabdullaahi ayaa sharaxay ujeedka kulankani waxa uu sidoo kale sheegay in kulankani uusan noqon doon mid ugu dambeeya balse uu yahay mid taxana inaynu inagu iska kaashano sidaynu cadawga isaga difaaci lahayn inaynu iska kaashano sidii bulshadeena iyo laamaheena amnigu ay isugu xirmi lahaayeen inaynu iska kaashano sidii aynu horumar ugu gudbi lahayn ilmaheena waxbarasho firiya iyo caafimaad firiya ay u heli lahaayeen taas waa wax laga rabo inaga maskaxdeena iyo muruqeena oo midaysan inaynu ka soo saaro ma noqon doono kulanku saaka kaliya waa soconaya sidaan horeba idinku sheegnay maantay waxaanu ku bilownay xaafadda Faanoole iyo Farjano insha Allah waxaan rajaynaynaa maadaama ay fadhiyaan intii bulshada ay ka koobnayd iyo hogaamadoodii iyaga ayaa gaarsiin doona intaan maanta goob joog ahayn. Axmed Maxamuud Mercury Galmudug TV Kismayo.